dalka South Africa dalkaasi Koonfur Afrika ayaa waxa uu cambaareeyay isla markaana ka hadlay xasuuqii al-shabaab ay ka geysteen ex control afkooye Sheekh Maxamed Idris oo ayaa mar uu ka hadlayay falkaasi waxa uu ku tilmaamay mid ka fog diinteena ku dhisan naxariista iyo badbaadada u taagan muraarimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri إلهي سبحانه وتعالى هو حرمي نف أو دن وإيه هذا مسلم يقال نف أو دن إن حق در اللي قدله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ما وجد إلهي سبحانه وتعالى أيضا بدن بكسا كلها النبي عليه الصلاة والسلام هديته يقفك مؤمن كان أو مسلم كان يسجح ليجيسه iyo maalkiisa iyo cirdigiisu muslim kale xaraam buu ka yahay haba yaraatee kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maaluhu wa irduhu bi nabi alayhi salaam dhiigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisa midna lama daadin karo nabi alayhi salaam wuxuu leeyahay la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath qof muslima dhiigiisa lama daadin karo illa saddex arrimood mooyaan qisaas inuu galay isagu wax dilay oo loo qisaaso inuu qof guur u hormaray oo maaragtay zinaystay yahay oo la rajo xadkii rajmiga lagu qaado iyo in qof diintiisii bedelay uu yahay oo maxkamadii iyo sharciga ku soo xukumo taas baa lagu dili karaa intaba waxa weey waa inuu soo maraa sharciga waa inuu soo maraa hatta arimahaas dhiigiisa lagu xalaleena si kaleeto uma banaana waman yaqtul mu'mina muta'ammidan qofkii qof mu'mina dila oo dhiigiisa daadiya ولا كع يسكما يضع كما هنا خطأ هين فجزاؤه جهنم ويري الله سبحانه وتعالى خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قف مسلمة وما عنتن توقفك ومسلمة إنه هو يراتي ديكي سداتي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ قف بك قد عكرتان موياني كاس وامركي هل قفل دلي نفكر يوم فما بالك كورن هديئات سوق دن انت اعتمادو اما جد دن انت اعتمادو مسلمين اي كغنعسنيان شقooyinkooda u socdaan iskuuladooda u socdaan ayaan wada qarxinaya oo dhiigooda iyo hilibkooda meelaha ku daadinaya oo aanan u kala aabiyanayn taas waa jariimo weey waa dambi weyn ka culus ku hada aan sheegaynay diinta kuma banaana oo insaaninimada kuma banaana oo Soomaalinimada kuma banaana dadka hadda Soomaali way dadka Soomaalida kale to gumaaday hatta dhinac ay ku dhamaantay oo akhlaaqda kuma banaana oo hatta gaalo badan baan ka suurtoobin hatta iska dhaaf muslimiin marka in haddana lagu magacaabo magac diineed waxaas wax jira ma waa been Ilaahay lagu abuurtay oo maaragtay islaamkii lagu fulxmeeyay weeye mana noqon karto qof muslima dhiigiisa in lagu faano ama la yiraahdo ajar baa lagu qaadanaya Ilaahayna uu leeyahay jahannama